business math procedure chapter kani koowaad ayaan anba qaada doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. shalay waxaan ka soo hadalnay welcome-iska aan kaga hadlaynay all chapterska oo buuggan uu ka kooban yahay. hadda waxaa weeye chapterkii koowaad ee contactiska oo dhammaystiran sida shaashada idinka muuqato ayaad igala soo xiriiri kartaan. chapter 1 waxaan ku sheegnay inaan ku qaadan doono whole numbers. tirooyinka waa kala baxaan. whole numbers aa jirta, decimal aa jirta, prime number aa jirta, numbers waa badan yihiin. marka whole numbers waxaa waaye waa tirooyinkan caadiga anaga aan naqaano, tirooyinka idin loo yaqaano oo sida hadda 1 iyo 2 aan jajab ka ahayn. marka waxaan kaga soo hadalnay how to dissect and how to solve problems, sida loo analyze gareeyo iyo sida problemada loo xaliyo ayaan chapterka koowaad ayaan kaga hadli doonaa. marka line objective 1ka markaan ka hadlayno reading, writing, rounding whole number, waxaan kaga hadlaynaa reading whole number sidee loo akhriyaa, writing sidee loo qoraa, rounding sidee loo soo buuxiyaa tirooyinkeeda. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in xisaab qor markii la yiraahdo qaab kale ay u qoraan. xisaabta weyn loo qoray leedahay ee kaga duwan tahay qoraalada kaleento. reading markii la fiina qaab loo akhriyo leedahay, مثلا digitka lagu akhriyo ayda godadka ay ku jirta xisaabta ama digit value ayaa lagu akhriyaa. writing markii la qorayna saddexdii numberba waa in comma loo dhaxaysiyaa, comma. rounding markii laga hadlayna waxaa loo fiirinayaa pointiga wixii inta ka jiro ama ka jiro qaybta leftiga qaybta waxa ka jiro ayaa loo fiirinayaa ayda. marka inta isku soo wada duub unit objective 1ka waxaan ku qaadanayaa use anaga isticmaalayno place value, barta oo ku jira ama godka oo ku jira numberka. place value isticmaalayna. place value waxa waa barta oo numberka uu ku jiro. to read si loo akhriyo, and write loona qoro. numeric xisaabta figureka. numeric waxa xisaabta caadiga oo naqaano 1 2 3 ga caadiga naqaano ayada. iyo haddana verbal tirooyinka qoraalka. verbalka waxa tirada marka qoraal ahaan loo qoraayo 1 oo ah o n e, 2 t w o, 3 t h r double e. qaabkaas waxa loo yaqaanaa verbal ayaa loo yaqaanaa qaybta qoraalka. xisaabta midna waa figure oo numeric, midna waa verbal. marka labadooda waxaan u fiirinaynaa place value-ga oo shayga oo ku fadhiyo oo ah numberka godka oo ku jiro. objective-ka koowaad taasaan ku arkaynaa. objective-ka labaadna waxaan ku arkaynaa qaybtan oo ah round whole numbers, sidee loo soo buuxiyaa tirooyinka idan. to indicate position adoo fiirinayo waxaa lagu cadeynayaa barta la soo buuxinayo. مثلا waxaa lagu leeyahay mar god 10aad soo buux, mar waxaa lagu leeyahay god 10aad soo buux, mar waxaa lagu leeyahay god 100aad soo buuxi. marka sidee loo soo buuxiyaa? sharciga buuxintan waa ku sheegay oo shalay welcome-kan kaga hadalnay oo ah haddii tirada 0.5 iyo wixii ka koreeya ah hala laga soo qaataa tirooyinka lagu buuxinayo. number 1 hala lagu daraa. marka haddii laakiin 0.5 ay ka yar tahay sida 0.49 xitaa ilaa laga gaaro 0.1 tirooyinkaas waa la drop gareynayaa oo wax change ah laguma sameynayo, numberka lama soo buuxin karo, sidiisa loo daynayaa. okay, qaybta saddexaadna waxaa waaye waa blueprint ayaa la isticmaali doonaa. blueprint 8 macnaha waxaa waa table naga saacidayo inaan analyzing-ka aan sameyno. objective-ka labaad ayadana waxaan kaga hadlaynaa adding and subtracting whole number sidee la iskugu daraa oona loo kala jaraa ayaan kaga hadlaynaa. tirooyinka idil waa sida hadda xisaabta aan ku soo qaaday elementary-ga. tirooyinka waa la isku daraa. tirooyinka idil qaab waa la isku daraa caadi. 1 + 1 = 2, 4 + 4 = 8 waa la isku darayaa. and subtracting whole numbers waan la kala jarayaa. marka objective-kaas intaasaa laga hadla oo ah in isku geynta iyo kala goynta whole number. check adoo cadeynayo and estimate addition competition, macna qiyaasayo addition competition qaab xisaabeedka ama qaab isku geyn xisaabeedka adoo fiirinayo. tana waxaa waaye waa iyada sidii waa idan kala goynti waaye. objective-kan waxaa lagu bartaa bas kala goynta iyo isu geynta ayaa laga hadlaa oo kaliya. kana waxaa subtract inaa kala jartid whole numbers tirooyinka idan. marka haddana checking u sameynaysaa and estimate subtraction competition, macnaha waana kala jaraysaa kadibna waa check gareynaysaa. checking u sameynaysaa. checking-ka adiga qaabkii oo
istilaabkii ahayd laba qaab loo sameeyo qaab waxa waa in oo saas aad istilaab u sameyso qaabkaas aad checking ku sameyn kartaa objective kan saddexaadna waxa waaye waa multiplying isku dhufasho and dividing kala qayb whole numberska marna waa la isku dhuftaa marna waa la isku qaybiyaa inuu kala mid yahay asagana in multiply whole numbers waa isku dhufanay kadibna jaga u sameynaysaa checking u sameynaysaa checking ka hadda la sameeyay checking ka caadiga maana waa estimation multiplication competition estimation u sameynaysaa qiyaas oo 0 ah ku saleynaysaa divide isku qayb whole numbers ka ama tirooyinkeeda la isku qayb adoo check gareenayo ama estimate gareenayo estimate competition sameynaysaa estimate competition waxa waaye in tirooyinka macnaha aad drop grade sida numberka ugu dambeeyo un number ka dhigtid kala 00 ka dhigtid qaabkaas waa estimate competition ka waa kana marka qaybtan ka hadlayno oo ah whole numbers place value charterkana ku arkayna tirooyinka idil place value marka la fiirinayo meesha uu ku jiro sida hadda meesha ka muuqato figure 1.1 jantuskan 1.1 sida ka muuqato waxaana la siiyay tirooyinka marka akhrinayno intaana la rabaa in oo godad loo kala saleeyo saddexdan ugu horeyso waa hundreds saddexdan waa thousands saddexdan waa millions saddexdan waa billions kana waa trillion ayaa kaligiis uu ka jooga marka xisaabtan waxaan leenahay 1 trillion 605 billion 743 million 891,412 ayaan u akrinaynaa ayadii marka waxaa lagu saleynaa xisaabta marka akhrinaysid digit iska fiiri saddexda ugu horeyso waa hundreds waa boqolaad saddexda ku xigta waa thousands waa kumaad saddexda kale inta ku xigta waa millions milyabaad saddexda ku xigta ayadana waxay noqonaysaa billions saddexda ugu dambeysana waxay noqonaysaa trillions saasaa la rabaa inaad xisaabto marka kan wuxuu galayaa tuudan waxay noqonaysaa god ones god koowaad ay galaysaa macnaa one wixii saanka waa un decimal points wuxuu noqonaa jajab tawani noqonaa 0. something noqonaa 0.1 0.5 laakiin tirada 1 ay ka bilaanaysaa 1 wixii xagga ka jira point yaa soo galaa tuuga marka wuxuu noqonaa ones koowaad ayuu noqonayaa 1 kan wuxuu noqonaa tens tobanaad ayuu noqonayaa afarta waxay galaysaa hundreds god boqolaad ayay galaysaa saddexdan ugu horeyso god boqolaad la isku dhahay kan koowaad waa koowaad ones kan labaad waa tens tobanaad kan saddexaad waa hundreds boqolaad kadib waxa u dhaxaysiinaysaa sida halkan ka muuqato comma ay u dhaxaysiinaysaa comma okay saddexdii god aad waxa galeena oo thousands ka sana sidii waaye wuxuu kala baxaa thousands oo kumaad ah 10,000 tobanaad kumaad 100,000 boqolaad kumaad saddexaasna waxaa loo yaqaanaa thousands aa loo yaqaanaa saddexdii millions ka galaysaa millions oo kan koowaad ah 10 millions 10 milyamaad 100 millions 100 milyamaad okay haddana waxaa galaysaa saddex comma u dhaxaysiinaysaa markaasoo saddex aad samaysidba comma u dhaxaysiinaysaa saddexda haddana waxaa galaysaa oo billions aad galaysaa kan koowaad waa billions billianaad 10 billions tobanaad 10 bilyanaad 100 billions boqolaad bilyanaad comma u dhaxaysiinaysaa haddana waxaa galaysaa saddexdii trillion laakiin hadda halkii trillion aan nagu horeey laba kale intaa ka dhiman trillions 10 trillions iyo 100 trillions isku soo wada doob xisaabta qaabka noocan ah oo aad sheegaysa digitka ama godka ay ku jirto ayaa waxaa loo yaqaanaa place value ereygaas aan isticmaali doonaa place value aan isticmaali doonaa shayga meesha uu ku qiimeysan yahay xisaabta markii saan oo kale loo qoro waxaa loo yaqaanaa verbal sadaan oo kale markii loo yaqaan waxa loo yaqaan figure ama numeric xisaabta qaabkana waxa loo yaqaan figure as figure u qor book markuu ku dhasaana u qoraysaa as verbal u qor markuu ku dhahan qaabkana u qoraysaa okay waxaan filayaa inaad ka bagateen qaybtan aan ka gudbi karno okay writing see loo qoraa numeric tirooyinka caadiga ah and verbal iyo kuwa qoraalka whole numbers ee tirooyinka idil sidee loo qoraa kuwa tirooyinka caadiga ah iyo kuwa qoraalka sidee loo qoraa that's the question marka waxa lagu sii fiir meeshan waxa lagu sii tira qoraal lagu sii tirooyinka qoraalka waxa laga rabaa inaad ka dhigtid figure inaad ka dhigto godadna ku salaysid tii hore waxa ay ahayd
as figure lagu sii sida meeshan ka muuqato waa kana as figure waa kaasa qoraalkan caadiga waa qoraalkii caadiga waxaan ku saleynay godadkaan ku saleynay haddana waxaan nala sii ayadoo numeric ayaa nala siiyo ayadoo aan dhahay sorry ayadoo verbal aan nala siiyo qoraal caadi ah meesha hadda waxaa ka muuqataa 1 trillion 605 billion 743 million 891,412 fiiri 1 trillion gadaal oo taga doonaa marka aniga intaan ka bilaawayna meeshaan hoosaan ka bilaawayna 412 wuxuu noqonaa 402 alif waa kana sidaan ku saleynaynaa godka ugu dambeeya waa decimal point 1 2 wixii saan ka jarjab uu noqonayaa ones 2 marka waxay noqonaysaa ones god koowaad ama axad arigu waxay dhahaan axad casharaad mi'aad uluuf cashara uluuf mi'aad uluuf kadibna milyaanaadka caadiga waa ayagana waxay leeyihiin milyaar عشان مليار بليار ساسي وآخرين وأنا اسكو هال مليون بليون تريليون الدنيا اسكو ماذا كتواسان لكن وحي كل دوين قدرت كان كواد يلا يطبانات يبخلات بيكو كل دوين مركز 400 كان كبلاوني 402 ألف وكان 402 ألف مركز 2 وحي نقولنسا وانس كواد أي نقولنسا 1 كان وحي نقولنا تنس طبانات أي نقولنيا 4 كان وحي نقولنا هندرز بخلات أي نقولنيا كدي وحلنا كوما وحن كحجينينا أنت باش وحلا 891,891 ساسوا good thousands أمي كجرا 891 1 كوحنا قلنا 1000 9 كوحنا قلنا 10,000 ونقنا 8 كوحنا قلنا 100,000 ونقنا أوكي أنت سوا كبحني أدنى وحنا كحجنا ماشان أنت كبلاو 700 و 743 743 7 iyo 43 743 waxay ku jiraan millions godka milyonaad ay ku jiraan 3 wuxuu noqonaa millions 4 wuxuu noqonaa 10 millions 7 wuxuu noqonaa 100 millions koma leedahay kadibna waxaan ku tageynaa qaybtan 605 billion 605 billion god bilyonaad joogto 5 wuxuu noqonaa billion 0 wuxuu noqonayaa 10 billion 6 wuxuu noqonaa 100 billion kadibna 1 trillion gooni ayaa u taala ayadoo marka qoraal ah waatana this is verbal whole number oo qoraal ah tira idil oo qoraal ah qaybtana waxa waaye figure oo waxa waaye ama numeric oo whole number ah inta marka adaad garateen aan ka socono okay qaybtana nagu miibsa marka chapterkeena converting parties conversion waa isku beddelid tirooyinkii ayaa la isku bedbedelayaa converting parties qaybaha isku bedbedelka tirigila whole numbers tirooyinka idil oo caadiga ah ayaa la isku bedbedelayaa marmarka qaarkood waxa la isticmaalaa adduunyada point ayaa la isticmaalaa waxa lagu leeyahay wadankan waxa loogu deeqay 2.3 bilyan ayaa loogu deeqay lagu leeyahay 2.3 bilyan ma fahant 2.3 bilyan marka waa standard dunida ay isla taqaano laakiin dadka qaarkood waxa laga yaabaa inaysan fahmi karin marka waxaan rabnaa qaabkii xisaabta caadiga inaan u bedelno 2.3 bilyan maxay u dhigantaa convert waxaad badashaa 2.3 billion to irregular whole numbers tirooyinkii caadiga u bedel marka ilaa hadda ma cadee 2.3 qofka ma cado in billion hadii la raaciyo dadka qaarkood ma garan karaan 3daas waxay u taagan tahay laakiin 2 billion way fahmayeen laakiin 3da maxaa laga wadaa dadka qaarkood inaysan fahmayna laga yaabaa maybe laakiin dib ma laha haddaad fahantiin it is good haddaad fahmi weysin hadda ka bago okay waxaan isticmaalaynaa stepka koowaad wuxuu leeyahay drop decimal point dhibicda ama jabtabanlaha ama pointiga ayaad meesha ka bixinaysaa an insert waxaad gelinaysaa booskeeda comma geli 2.3 pointigaas ayaa decimal point loo yaqaanaa ama dhibic pointigaas halka ka saar waxaad gelaysaa insert geli comma ku bedel tuudi waatana pointiga waan saarnay waxaan ku bedelnay comma ayaan ku bedelnay 3du waa sideedii step 2 muxuu leeyahay add zeroyin ku dar so the leftmost digit ilaa aad ka tagto meesha ugu dambayso leftmost digit meesha ugu dambayso ilaa aad ka tagto zeroyin ku dar
end isku dhamee word name of the amount you wanted to convert inta aad rabto inaad badashid ku dhamee be sure xaqiiji to add commas as needed meesha kooma laga baadan inaad koomadeed ku dartid xaqiiji markii la yiraahdo 2.3 wuxuu noqonayaa 2 bilyan iyo 300 milyan uu noqonayaa haddii lagu dhaho 2.4 waa 2 bilyan iyo 400 milyan haddii lagu dhaho 1.2 waa 1 bilyan 1.2 bilyan haddii lagu dhaho waa 1 bilyan iyo 200 milyan saasoo noqonayaa marka kooma meesha laga baahan yahay koomadeeda raac tuudu waa sideeda u daayay saddexdaana waxay u taagantahay 300 milyan 300 milyan kooma qaybta thousands kooma kadibna waa kaasa step 2 marka waa raacay waxaan filayaa inaad fahanteen round whole numbers qaybtan waxaan kaga hadalnay sida macnaha pointiga lala macaamilo sida laga saaro stepka la maro stepka koowaad waxaa pointiga kooma ku bedelo kadibna dhawaqa ama wixii lagu diro fiiri haddii hadda meeshan lagu dhaho 2.3 milyan haddii lagu dhaho oo meeshan milyan lagu bedelo waxay noqonaysaa 2 bilyan waxay noqonaysaa sorry 2.3 milyan haddii lagu dhaho waxay noqonaysaa 2 milyan iyo 300 kun ay noqonaysaa had tirada ku xigtaa markaas fiirinaysaa milyan yaa ku xiga oo dariskiisa oo left most side marka aad fiirisid bidixda waa left most marka lagu dhaho xagga bidixda yaa ka xiga waa 2.3 bilyan lagu dhahay bilyan waaba garanay bidix yaa ka jira milyan yaa ka jira 3 milyan bay noqonaysaa marka koomada u dhowda milyan laakiin haddii lagu dhaho 2.03 haddii lagu dhaho 30 milyan ay noqonaysaa marka ma fahanteen haddii lagu dhaho 2.003 haddii lagu dhaho 3 bilyan ay ayadana noqonaysaa inta waa isla garanay marka meesha kooma laga baahan yahay koomadeeda sideeda u raaci qaabkaas ay noqonaysaa qaabka labaad waa rounding whole number tirooyinka idil markii la soo round gareynayo roundiga heshiiskiisa wuxuu ahaa haddii numberka meeshaan ka jiro oo 5 iyo wixii ka badan uu yahay 5 iyo wixii ka badan hadduu yahay halaa laga soo qaadanayaa oo inta kale waa drop gareyna 0 waa laga dhigayaa haddii laakiin tirooyinka oo aad buuxinaysid laftiga kan ka jiro ama bidaxa ka jiro hadduu 5 ka yar yahay 4 3 hadduu yahay wax change kuma dhaa waa drop gareyna tirada sideedii aanaysa stepka koowaad wuxuu leeyahay identify caddee the place value of the digit waxa la bedelaya halka uu kaga jiro godka caddee you wanted to round aad rabta adiga inaad round ku samaysid hadda sida valartan ka muuqato 3ga lagu aadiyay 3da wuxuu noqonayaa base value-gu waa 3 daas ayaa waxa la rabaa in round gareysid 3 markii lagu diro inaad round gareysid 3 waxa u fiirinaysaa numberka oo ka jiro xagga bidaxda fiirinaysaa 3 bidax yaa ka jira ama numberka dhinaca bidax ka jiro waa 6 5 ma ka badan tahay hawa 5 iyo wixii ka badan haday tahay 3 waa la soo buuxinayaa oo waxa lagu soo buuxinayaa 4 ayaa laga dhigaa meeshaan inta kale 6 iyo labadana waxa laga dhigaa 00 ayaa laga dhigayaa stepka koowaad waxa waaye identify caddee the place value of the digit shayga la soo buuxinayo ama you want to round aad rabto inaad soo buuxisid meesha oo ku jira ama godka oo ku jira caddee haddii 3 waxay ku jirtaa god waxay ku jirtaa 100 ay ku jirtaa boqolaad ay ku jirtaa maadaama 3 aan raba inaan round gareeyo waxaan u fiirinayaa tirada ka jirto bidaxda ayaan fiirinayaa bidax yaa ka jira bidax waxaa ka jirtaa 6 marka maadaama 6 bidax ay ka jirto 6 5 iyo wixii ka badan ma taha haddii saas tahay 1 aan ka soo qaadanaynaa 6ka ayadana 0 aan ka dhiganaa tirada kale ka dambeysana 0 ayaan ka dhiganaa 1 keedana waxaan ku buuxinaynaa 3 gaan ku buuxinaynaa stepka saddexaad step 2 wuxuu leeyahay identify caddee the digit to the right midka midig ka jiro markii la fiiriyo saddexda sorry midig yaa ka jira afiinaysa qodobkan yaan isku dhex wareerin kan koowaad waxa cadeynaysa oo kaliya place value kan la rabo in la round gareeyo cadeynaysa hadda waxaan rabnaa in round gareeno number 3 aan rabnaa in round gareeno stepka labaad wuxuu leeyahay maadaama aan ogaanay number 3 in la soo buuxinayo ama tiradaas la soo buuxinayo stepka labaad waxaan cadeynaynaa tiradaas number 3 midig yaa ka jira midig waxaa ka jira number 6 ka jirta number 6 oo midig ka jirto hadday tahay haddii tahay 5 iyo wixii ka badan tirada midig ka jiro tirada la buuxinayo tirada midigta ka jirto hadday tahay 5 iyo wixii ka badan increase waxaan ku zaa'idinaynaa identify digit godkii aan dooranay waan ku zaa'idinaynaa 3 aan dooranayno 3 waan ku zaa'idinaynaa oo waxay noqonaysaa marka 4 ay noqonaysaa if less than 5 haddii tiradan oo saddexda aan dooranay aan xulanay tirada midig ka jirto ay tahay 5 iyo wixii ka yar don't change
wax isbedel ah kuma sameynaysid. Stepka koowaad waxaa waaye kan la bedelayo caddee. Stepka labaad waxaa waaye kan la bedelayo midig maxaa ka jira. Midig waxaa ka jira 6 haddii tirada midig ka jirto oo 5 iyo wixii ka badan ay tahay 1 ku zaa'id tirada aad round garaynayso 1 ku zaa'id inta kale tan eber ka dhig. haddii tahayna 5 wax ka yar haddii tahayna wax change ku sameeyay. Stepka saddexaad wuxuu leeyahay drop all digits godadka oo dhan waxaad ka dhigtaa to the right oo midig xiga waxaad ka dhigtaa of the identified digit oo midka aad dooratay inta kale tan eber ka dhig. hadda waa kan 9 waa kana 3 aan dooranay 3 midig waxaa ka jirtaa 6 6 and 5 waa ka badan tahay sida sharcigeedna waana ka soo qaadanaynaa. marka 6 waxaan ka soo qaadanaynaa oo meesha waxay noqotay 4 ayay noqotay. maadaama 4 ay noqoto sharciga saddexaad wuxuu leeyahay wax alaal wixii marka midig ka jiro 4 kaas ama tiradaas soo bixisay drop gareeyo 0 ka dhig. waatana 0 aan ka dhignay. waxaan filayaa inaad fahanteen qaybtaas aadna ka bagateen. qaybta kale marka round in the way habkan waa habkii waa ku baraatikeynaysaa oo okay. Stepka koowaad waxaan dhahnay identify the leftmost digit kan ugu dambeeya kan ugu dambeeya soo buuxa lagu raay 7 waa kan ugu dambeeya leftmost bidix ya iga jiraad fiir bidix kan ugu dambeeya bidix jira leftmost digit hadda lagu raay kan ugu bidix 7da bidix iga jirta hadda sida muuqato 7da ayaa the leftmost ayaa bidix iga jirta. waa ogaaday base value kan aan soo buuxinayo hadda waan helay Soomaan. okay. Stepka labaad waxaa leeyahay identify caddee the digit to the right digitka midig ka jiro 7 maadaama aan soo buuxinayo midig yaa ka jira 8 yaa ka jirta 8 5 ma ka badan tahay ha way ka badan tahay. haddii 5 ka badan tahay hal ka soo qaad oo 7 8 isku bedelaysaa sharciga saas u ahay. laakiin haddii ka yar tahay 7 aan rabo inaan soo buuxiyo tirada midig ka jirta haddii 5 ka yar tahay wax isbedel ma sameeyna 7deeda ay ahaanaysaa. laakiin hadda maadaama 8 ay tahay 1 ayaan ka soo qaadanayaa oo 7 waxay ii noqonaysaa 8 ay ii noqon doontaa. Stepka saddexaad waa change all the other digits to 0 kuwa kan waxaan ka dhigayaa 0 aan ka dhigaa. waa kan 7 waatana waa soo buuxiyay 8 aan ka dhigay inta kale tan 0 ayay noqdeen. qaybtan kaleeto xiisadeena soo socota ayaan ku qaadanaynaa. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakatuh.